السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal waxaa jimwaarig oo idin leh baryaan kala maqnayno waan idin basaasay bulshayahay ma nabadba. maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa burcadkii hantay kalsoonida mid ka mid ah hogaamiyayaasha caalamka. daawadayaal barnaamijkan guud ahaantii waxaan ka soo xigtay Al Jazeera qaybteeda dabagalka ee loo yaqaan Al Jazeera Investigation. waa dhacdo xanuun badan oo ilaa iyo maanta ka taagan waddanka Bangladesh. waan ku dili karaa laakiin haddaan ku dilo ma dareemaysid xanuun, waanse ku rafaadinayaa. Maxamed Xasan oo dhoolla caddaynaya ayaa si qoto dheer u jiiday sigaarkiisa. farihiisa waxaa ku jira fargallo dahab ah iyo saacad dahaba. waa sariflihii ugu weynaa magaalada Budapest. qiiqa sigaarkiisa ayaa kor ugu baxay saqafka sare isaga oo leh waxaani waa ganacsi uun. waxaaba la moodaa in aad daawanayso muuqaal laga soo duubay filim maafiya ah. haddaba waa kuma Maxamed Xasan? Maxamed Xasan waa laba qof. mid ka mid ah wuxuu wataa magac qoys oo sheekadeenna aad muhiim ugu ah. midka kalena waa ganacsada yar oo kumanaan mayl uga soo safray Bangladesh si uu nolol cusub uga bilaabo Yurub. sariflaha loo yaqaano Bay of Bengal waa mid ka mid ah ganacsiyadiisa uu ku leeyahay Budapest tan iyo markii uu yimi 2015. sariflahani waa mid suuq madow ah oo aan lahayn oggolaansho dowladeed, laakiin Maxamed Xasan waxaase shaqadiisa maaha. ganacsigiisa labaad waa casho dhaqameed Hangariyaan ah oo loo yaqaan Gulyas Etherem. ayuu ku iibiyaa hudheelkiisa Gulash Restaurant oo ku yaala faras magaalaha, meel inta badan ay dalxiisayaashu yimaadaan. Maxamed Xasan hudheelkiisa iyo dhammaan ganacsiyadiisu waa kuwa si joogto ah u khasaara lacag badan. waxa uu leeyahay hostelka ardayda laga kireeyo, dukaamo dharka dumarka lagu iibiyo iyo hudheello kale oo uga furan magaalada. Maxamed Xasan waxaa jirta lacag fara badan oo si suuq madow ah ku soo gasha. dhibkiisa ugu weynina wuxuu yahay sidii uu u qarin lahaa kiishashka sharci darrada ah. haddaba Maxamed Xasan kan wata dharka qaaliga ah, sita dukumentiyo faalsa ah, leh ganacsiyo kala duwan, guud ahaanba waa mid dhalanteed ah. wuxuuse ku guulaystay daacadnimada mid ka mid ah hogaamiyayaasha caalamka iyo ilaalada xuduud military. wejigiisa dhabta ah iyo magaciisu waa Haris Ahmed. waa wiilka saddexaad ee ugu weyn qoyska reer Ahmed. 1966 ayuu ku dhashay magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh. iskuulka goor hore ayuu ka tegay isaga oo nin dhalinyaro ah. wuxuu si dhaqso leh u helay dalab ku saabsan hibada uu u leeyahay rabshadaha iyo baadda ka dhex jirta kooxaha dambiilayaasha ah ee magaaladaasi. walaaladiis Joseph, Anis iyo Tibu oo ay weheliyaan qoyska reer Ahmed waxay dhiseen sumcad cabsi iyo baqagelin ah. 1980 qoyska reer Ahmed waxay xoog ku qabsadeen degmada sii fidaysa ee Mohammadpur ee caasimadda ku taala. arrinkaas ayaa u keenay maal iyo caannimoba. waxay ahayd goob mashquul badan oo ay ku yaalaan meherado yaryar iyo hudheello. afarta ilmo Ahmed lacag ayay ka qaadi jireen mulkiilayaasha meheradahaas si ay amnigooda u sugaan. Bangladesh 1980 waxay u ahayd reer Ahmed meel ay burcadnimadooda kaga ganacsadaan. dal xasilooni darro iyo qalalaase ka jiro, dagaallo sokeeye iyo inqilaab military oo ay ku dileen madaxweynihii aasaasay dalkaas Sheikh Mujibur Rahman iyo qoyskiisa.
ka hor 1971kii ma jirin Bangladesh, waxay ahayd bariga Pakistan waxaana laga xukumi jiray Islaamabad. waxaa loo yaqaanaa aabbaha qaranka Sheikh Mujibur, wuxuuna hogaamiyey kacdoon ka dhan ah Pakistan, dagaal bahalnimo ah oo ciidanka Pakistan ay ku xasuuqeen ugu yaraan 300,000 oo rayid ah. Pakistan waxaa lagaga adkaaday gacan military oo Bangladesh ay ka heleen dalka ay deriska yihiin ee Hindiya oo ilaa maanta saameyn xoogan ku leh Bangladesh. ummadda Urdinka ah waxay la daalaadhacayeen qalalaase siyaasadeed, waxaana isla markiiba soo ifbaxay iskaashi u dhaxeeya siyaasiyiinta iyo mooriyaanta waddooyinka. mooriyaantii waxay yeesheen muruq, taa oo u saamaxday in ay howlahooda sii wataan. shabakadda mooriyaanta ah ee reer Ahmed waxay muujiyeen in ay muhiim u yihiin badbaadada hogaamiyeyaasha ururka Awami League. waa xisbigii uu ka dhintay hogaamiyihii la dilay ee Sheikh Mujibur, xilligan la joogana waxaa hogaamisa inantiisa uu dhalay ee Sheikh Hasina, iyadoo ku soo laabatay Bangladesh 1981kii kadib markii Hindiya ay soo tarxiishay. waxay ahayd xilli si gaar ah loolan adag uu u galay siyaasigii da'da yaraa, waa wiilkii ugu weynaa reer Sheikh Mujibur, laakiin qalalaase xoogan oo rabshado wata oo lagu kacay reer Sheikh Mujibur ayaa waxaa ka badbaaday Sheikh Hasina iyo walaasheed Rihana, iyaga oo dalka markaas ka maqnaa. sanadkii 1982kii inqilaab kale ayaa dhacay. Genaraal Hussein Mohammed Irshaad ayaa awooddii la wareegay. Sheikh Hasina waxay la kulantay hanjabaad joogto ah, xabsi guri, xarig iyo jirdil. fursad weyn ayay ka heleen halkaas walaalaha reer Ahmed, iyaga oo gaashaan adag u noqday Sheikh Hasina. waxay ku ilaalin jireen isu soo baxyada, waxayna u diyaarin jireen guryo ay shirarka xisbiga Awami League ku qabsadaan, iyagoon ka baqayn military soo weerara iyo wax kale toona. walaalaha reer Ahmed waa laga cabsan jiray, inkasta oo ay aargoosi kala kulmi jireen mooriyaanta xaafadaha kale ku dhaqan. Tibu wuxuu ahaa kan ugu yar iyo sida saaxiibkii laga soo xigtay kan ugu caqliga badan, kadib markii uu isu dhigay in uu yahay diigga xaafadda Muhammadpur. waxaa lagu dilay weerar mooriyaannimo ah 1999kii. 20 sano ka hor 4 ka mid ah walaalaha reer Ahmed halka ay shaqo ka dhigteen mooriyaannimada. wiilka shanaad ee Asiis Ahmed wuxuu doortay waddo ka duwan midaas kadib markii uu qortay ciidanka Bangladesh. asxaabtiisa akaademiyadda waxay ku tilmaameen in uu yahay sarkaal aan la qiimeyn karin, laakiin Asiis si dhaqso leh ayuu uga soo dhex baxay darajooyinka dallacsiinta. waxaanu sii laba laxaadsaday markii siyaasadda ay hogaamisay Sheikh Hasina. wareegyadii toogashada, garaacista iyo dilka ee Dhaka, hal dil oo naxdin leh ayaa bedelay masiirkii qoyskii reer Ahmed. sanadkii 1996kii Mustafisuur Rahmaan Mustafa waxaa lagu toogtay waddo luuqa kadib markii ay toogteen 3 nin oo walaalaha reer Ahmed ah, Anis, Haris iyo Joseph. inkasta oo xabado lala dhacay Rahmaan, haddana muddo dheer ayuu xaalad caafimaad u jiifay cisbitaalka, iyadoo maxkamadda lala sugayo in uu Rahmaan markhaatiga furo. nasiib darrose cisbitaalka ayuu ku dhex geeriyooday. 2004 maxkamad la soo taagay 3dii walaalaha ahaa ee reer Ahmed ayaa soo afjartay masiirkii qoyska. Joseph Ahmed waxaa lagu xukumay dil, halka walaalihiis Anis iyo Haris lagu xukumay xabsi daa'im. nasiib darrose way baxsadeen, waxayna ku guulaysteen in ay dalka ka baxaan. waxaa loo malaynayaa in Anis Ahmed uu aaday Malaysia, halka Haris uu ku dhuumaalaysanayo Hindiya, iyadoo laga yaabo in uu ilaaliyo sirdoonka militariga Hindiya.
cadaaladda Bangladesh in aad ka baxsataa waa iska caadi, laakiin in aad sharciga ka fogaataa waa arrin u baahan lacag, xidhiidho iyo shabakado awood badan. haddaba kooxda Ilmo Axmed waa kuwa haysta lacag badan kadib markii Asiis Axmed la dallacsiiyey 2012 oo loo magacaabay in uu noqdo taliyaha ilaalada xuduudaha ee Bangladesh BJP oo ah ciidanka ugu da'da weyn labiska waddanka. taliska BJP waxay bilaabeen olole ka dhan ah mucaaradka. Asiis wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray xaqiijinta guushii doorashada ee Sheekh Xasiina intii lagu guda jiray rabshadihii wadooyinka ee doorashadii 2014. 2018 Asiis waxaa loo magacaabay abbaanduulaha ciidanka qalabka sida, iyadoo xafladaasna lagu shaaciyey in ra'iisul wasaaruhu sidoo kale uu yahay madaxa ciidanka qalabka sida. Asiis walaalkii Joseph oo hore xukunkii dilka ahaa ugu bedelay xabsi daa'im ayaa 2018 xabsiga laga sii daayey amar ra'iisul wasaare oo aan caadi ahayn. haddaba aynu eegno labadii kale ee Ilmo Axmed ee xabsi daa'imka ka baxsaday. haddaynu ku horeyno Haris Axmed waa kan Budapest jooga ee magaca bedeshay lana baxay Maxamed Xasan. 9 Disembar 2014 Generaal Asiis wuxuu ku raaxaysanayay Kempinski Hotel ee magaalada Budapest. Generaalku wuxuu ahaa ergey rasmi ah shirkii Borderball Wall, halkaas oo ay isugu yimaadaan saraakiisha xuduudaha ee caalamka si ay uga wada hadlaan amniga iyo socdaalka. ma jirto meel ka fiican oo laga diyaarin karo qorshe lagu tahriibinayo qof baxsad ah oo laga gudbinayo xuduudaha caalamiga ah isagoo adeegsanaya baasaboor been abuur ah. saraakiisha safaaradda Budapest ee Bangladesh waxay ka codsadeen nin dhalinyaro ah oo reer Bangladesh ah in uu caawiyo Generaal Asiis inta uu ku sugan yahay Hungary. Sami oo magaciisa lagu soo koobay badqabkiisa awgeed wuxuu ahaa 30 jir ganacsi yar ku leh Hungary. wuxuu dareemay in ay sharaf u tahay in uu caawiyo wafdigan heerka sare ah ee ka socota dalkiisa. waxay ku wada dalxiiseen webiga biyaha barafka leh ee Danube, magaalada taariikhiga ah ee Budapest. iyagoo miiska cashada fadhiya ayuu Generaal Asiis weydiistay Sami in uu caawiyo generaalka walaalkiis oo la yiraahdo buu sheegay Maxamed Xasan si uu u dego Budapest ganacsina uga sameeyo. codsigan caawimada ah ee qabow wuxuu aakhirka daaha ka qaadi doonaa shirqool dambiyeed oo gaadha xafiiska ugu sarreeya siyaasadda ee Bangladesh, wuxuuna u horseeday nin dhalinyaro ah inuu galo khatar u horseeday inuu naftiisa u baqo. Sami wuxuu ogolaaday in uu caawiyo, laakiin waxay ahayd waqti uun kadib in uu ogaado sirta halista ah in Maxamed Xasan uu yahay Haris Axmed, nin burcada oo baxsada kana awood iyo lacag badan. Sami bilooyin kadib waxaa loo diray Sami dukumentiyo shaambadaysan oo ay markhaati ka yihiin saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, maareeyaasha bangiyada, qareenno iyo shaqaalaha safaaradda ee Bangladesh iyo Hindiyaba oo uu muddo ku noolaa Haris Axmed. waa been abuur awood iyo dhaqaale wadata oo Haris Axmed u bedelaysa Maxamed Xasan. Anis Axmed oo ah midkii labaad ee ka baxsaday xabsi daa'inka, isaga waxaa la soo xaqiijiyey in uu ku sugan yahay caasimadda Kuala Lumpur ee Malaysia. sharciga ayay ka baxsadeen mooryaantii reer Axmed, maantana Bangladesh iyaga ayaa u taliya. intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo faahfaahsanna waxaad ugu noqon kartaa Al Jazeera Investigation. tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale ku kulmayno waa Xaaji Mubaarak oo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.